بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee halkan fadhiso qof walba waxaan ku salaamayaa mansabka iyo magaca oo halkan ku fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib laga yaabaa in kasta ay jiraan shirkado kale oo caymiska caafimaad ka shaqeeya laakiin waa markii ugu horeysay oo lagu yeero aan ka qayb galo shirkad caymis caafimaad bixinayso runtii waa wax aad loogu farxa waana tallaabo weyn oo hore ay u qaado Soomaaliya annaga oo ka ambaqaadayno ahmiyadda ay leedahay in iskaashadaan public iyo private ayaa xafiiska wasaaradda markaan imaaday waxaan aasaasnay sida Dr. Dalmar oo hor u sheegay public private partnership section aan wasaaradda ka aasaasnay si loo dhiirigeliyo iskaashiga public iyo private ka dhanka caafimaadka waa la og yahay public-ga inta uu qabto ka badan ayuu private ka qabtaa awoodda iyo capacity-ga private-ka uu leeyahayna aad bay u ballaaran tahay tan dawladdana waa ognahay waxay ku tiirsan tahay inta badan donorka ayay ku tiirsan tahay inteeda badan taas oo inta badanna cover garayso primary health care-ka inta badan secondary health care-ka inkastoo isbitaallada hadda aan gacanta ku haynaba ay bixiyaan secondary health care si free ah ay ku bixiyaan haddana inta badan out pocket jeebkooda ay lacagta ka baxdaa muwaadiniinta inta badan secondary health care sidaa darteed bulshadeennana faqriga aad ugu badan yahay dadka awooda in lacagahaas badan ee kusoo baxay iska bixiyaan aad bay u yar yihiin in caymiska la sameeyo wax badan ayay maaragtay dad badan oo caafimaad aan heli jirin laga yaabo in xanuunada ay guriga ugu dhintaan laga yaabi lahaa ayay wax badan u tari doontaa waan dhiirigelinaynaa iskaashiga public iyo private-ka in ay iskaashadaan wax isla qabtaan ayaan dhiirigelinaynaa hal abuurka noocan oo kale ah in ay ganacsatadeenna la imaadaan ayaan dhiirigelinaynaa waxaan leenahay garabkiina ayaan nahay wixii aan idinla qaban karno oo idinkala shaqayn karno mar aan hindiya booqday waxaan soo arkay in caafimaadka dalkaas inta badan uu yahay private oo dawladda regulationskii uun ay u samaysay laakiin isbitaalka ugu weyn oo amrayna inuu yahay Apollo Hospital 47 branch dalka ku leh waa public private partnership oo dawladda dhulkiisa oo dhan ay leedahay ganacsatana ay maalgashteen marka in saas oo kale ganacsatadeenna iyo dawladda ay iskaashadaan ayaa wax weyn lagu qaban karaa oo caafimaadka dalkeennana uu ku hormari karaa marka waa dhiirigelinayaa iskaashi noocaas inuu jiro waan dhiirigelinayaa aad baa umahadsan tihiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala hal abuurada noocan oo kale in caafimaadka dalkeena iyo dadkeena ay wax ka tari doonaan waadna ku mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu